السلام عليكم أصحابتا asxaabay maanta waxaan booqan doonaa jasiirad aad u yar balse caalamka caan ka noqotay waa Migingo Island waxay ku taallaa harada weyn Lake Victoria waxaana lagu tilmaamaa jasiiradda ugu ciriirisan adduunka kun qof ayaana ku nool jasiiraddan waxaa ku wada nool Kenyaati iyo Ugandis waxaana ka dhashay muran siyaasadeed iyo mid xuduudeed sababtoo ah waa meel kalluunka laga helo uu aad qani u yahay. So Migingo Island belong to Kenya. That is the reality. Yaas meelaan ka weynaan garoonka kubadda cagta balse kun qof ay ku nool yihiin guryo yaryar ganacsi iyo nolol buuq badan ayaa halkan ka socda. Dadka qaar waxay ugu yeedhaan jasiiradda dahabka ee kalluunka. Haddaba sidee u muuqataa in meel yar oo sidaas u xidhiidhisan? The way they drew the colonial boundaries was simply straight lines. Nolol laga sameeyo bal fikir haddii aad halkaas ku noolaan lahayd sideed u maarayn lahayd. Comply with international law. They don't need visas or work permits. All right, welcome to Kenya. Nairobi. bilowga safarkeenu wuxuu ka bilaaban doonaa magaalada Nairobi inagoo isku diyaarin doona inaynu booqanno jasiiradda ugu ciriirisan adduunka Migingo Island. safarkaygu wuxuu ka bilaabmayaa subax hore anigoo raaci doona diyaarad tegina doona tuulo yar oo loo yaqaan Kisumu waana xuduudka Uganda iyo Kenya. And causes conflict there. Hi, welcome to Kisumu. kadib waxaan qaadan doonaa doon yar oo ina geyn doonta harada Lake Victoria wuxuu qiyaasaan safarku qaadan doonaa in ka badan 4 saacadood maadaama ay jiraan meel biyo ka qalloocaan iyo doomahaynu raacanno oo old version ah. So Migingo Island belong to Kenya. That is the reality. It is for Kenyans and nothing else. doonta ayaa mararka qaar gariiraysa taasoo safarka ka dhigaysa mid cabsi leh qaar ka mid ah saacadaha safarka ayaa ah mid uu roobka iyo dabaylaha xooggan ay ka dhigayaan socdaalka mid adag. jasiiradda aad u yar ayaa ka dhigtay in mararka qaar ay lunto jihadu inagoo raadin doono meel aan ku xidhanno doonta ugu dambeyn xilli habeen ah ayaan gaadhnay jasiiradda marka ugu horreysaba waxaan dhiibi doonaa $250 oo cashuur ah waxaana kala qaybsan doona ciidamada Kenya iyo Uganda kadib jasiiradda ayaan geli doonaa meeshan dadka deegaanka ayaa ku nasta waan salaameynaa hore ayaan u soconaynaa waxaan halkan ka samayn doonaa waraysi gaaban inagoo la sheekaysanayna qaar ka mid ah dadka halkan jooga waxaan ku horreyn doonaa meeshan oo cunto lagu iibiyo halkaasoo dadka deegaanka ka iibsadaan cuntada maalinlaha ah waxaan arkaynaa hadda sida cuntooyinka loo diyaariyo waxaan sii wadaynaa safarkeenna inagoo raadin doona goobaha xiisaha badan ee jasiiradda kanna waa dukaanka jasiiradda waxay ka sheekeynayaan nolol maalmeedkooda sida ay u shaqeeyaan kalluumaysiga iyo ganacsiga yaryar ee jasiiradda iyo sida ula tacaalaan caqabadaha nololeed waxaan arkaynaa meel aad u cidhiidhi ah oo ay ku nool yihiin boqolaal qof guryo yaryar ganacsi iyo nolol maalmeed buuq badan sida dadka deegaanka ay ugu adkaysanayaan caqabad nololeed sida biyaha yar adeegyada caafimaadka oo xadidan iyo cidhiidhiga dadka iminkana waxaa layna tusayaa meesha aan seexan lahayn qol yar oo fudud furaashkiiba 2 qof ayaa lagu seexan doonaa waxaana naga agdhow dad kale oo dalxiisayaal ah qol kale oo gaara ayaa lay tusay kaasoo haysta daaqad ku jeeda xeebta halkaasoo aynu ka arki doonno muuqaalka qurxoon ee xeebta meeshan oo meel lagu ciyaaro buul waxyaabaha xiisaha badan aan ku arkay jasiiradda waxaan iminkana arkaynaa ninkan oo laga xaday doontiisa waana caqabadaha dhabta ah ee ka jira jasiiradda gaar ahaan kalluumaysatada iyo dadka deegaanka oo mararka qaar la kulma dhacdooyin noocan ah
subaxdii ayaan gaadhnay waxaan la yaabay nidaamka gaarka ah ee jasiiradda iyo dadka ku nool. Waxaan arkaynaa ragga iyo dumarku ay ku kala meedhaan labada cidhif ee jasiiradda, taasoo ka turjumaysa dhaqanka iyo habnololeedka gaarka ah ee dadka deegaanka. Ninkii kalluumaysatada ahaa ee na keenay ayaan sugaynaa, taasoo muujinaysa sida dadka deegaanka ay ula socdaan shaqooyinkooda iyo mas'uuliyadda jasiiradda. guryahan halkan ku yaala dhammaantood waa jiingada yaryar. Inta ay noo imanayso doonto dadkan jasiiradda ayaan la sheekaysan doonaa, innagoo ka waraysanana xuduudka jasiiradda, sida loo maamulo iyo dadka halkan jooga. Dadka qaar waxay noo sharaxayaan meelaha ay ka yimaadeen oo kala ah Kenya iyo Uganda, iyagoo muujinaya isku darka qowmiyadaha iyo dhaqamada ku nool jasiiraddan. Waxay noo sheegayaan ninkan in jasiiraddu aysan lahayn dowlad rasmi ah ama sharci, balse dadka deegaanka ayaa iskood isku maamula. Mlunji. ninkan magaciisa waxaa la yidhaahdaa Cabdiraxmaan. Wuxuu sheegayaa inuu Soomaali yahay, kana shaqaysto kalluumaysiga iyo khayraadka, wuxuuna leeyahay kombali. haddii aad jeceshahay sheekooyinka safarka, ha ilaawin inaad like garayso muuqaalka, subscribe-na dheh channelka oo share garee si saaxiibada ay u daawadaan. waa inoo muuqaalka xiga insha Allah.